maanta waxaynu ku bilaabaynaa dagaalka waddanka Suudaan halkaasi oo lagu soo waramayo in maleeshiyaadka RSF mar kale weerar xagga cirka oo loo adeegsanayo diyaaradaha droonka inay ku qaadeen magaalada Port Sudan iyo deegaano kale ciidamada waddankaasi ayaa daboolka ka qaaday in maanta oo Jimcaha difaacyada cirku ay ka hortageen weerarkaasi oo lagu soo qaaday magaalada oo ah caasimadda ku meel gaarka ah ee dawladda Suudaan weerarkan wuxuu ahaa maalintii lixaad oo weerar xiriir ah oo maleeshiyaadka RSF ay ku beegsanayaan magaaladaasi goobjoogayaal ayaa sheegay in weerar dhanka cirka ay ka dhaceen dhanka waqooyi galbeed iyo koonfurta magaalada istaraatiijiga ah ee u muhiimka ah gargaarka dhanka bini'aadantinimada Port Sudan oo ku taal xeebta badda cas ee bariga Suudaan ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay wajahaysay weerar diyaaradaha droonka oo lagu bartilmaameystay goobaha militariga iyo kuwa kaydka shidaalka iyo sidoo kale garoonka diyuuradaha xarunta korontada iyo xarumaha rayida kuwaasi oo sababay khasaare nafeed iyo burbur hanti oo baaxad leh dhinaca kale ilaawareed ka tirsan dawladda Suudaan ayaa u xaqiijiyay warbaahinta in ciidamada dhulka ee Suudaan ee militarigu ay iska caabiyeen ilaa iyo 7 diyaaradaha droonka oo RSF ay soo direen kuwaasi ku soo dhacay ama lagu soo riday meel ku dhow magaalada Rabac ee caasimadda gobolka Niirka Calda sidoo kale weerar kale oo loo adeegsaday diyaaradaha drooniska ayaa RSF waxay ku weerareen kaydka shidaalka ee magaalada Kenana ee gobolka Niilka Calda oo ah magaalo muhiim u ah dhanka dhaqaalaha sidoo kalena hooy u ah garoon diyuuradeed oo loo adeegsada dhanka gaadiidka hawada iyo gaarsiinta alaabaha kala duwan iyadoo lagu soo waramayo in maleeshiyaadka gurmadka degdeg ah ay go'doon ka saareen gobolkaasi garoonkaasina si weyn loo adeegsan jiray magaalada Kenana waxay dhowr jeer kooxaha RSF ay la beegsadeen weerar xagga cirka isla war arrimaha la xiriira wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga ayaa maanta uga digtay muwaadiniintooda inay u safraan dalka Suudaan haddii aysan jirin baahi degdeg ah xilli diyaaradaha droniska ee gurmadka degdegu ay ku weerarayaan magaalada Port Sudan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa war saxaafadeed ay soo saartay oo ay tabisay wakaaladda wararka ee Anadolu waxa lagu yiri nasiib darro waxaanu arkaynaa in xaaladda amni ee Suudaan ay sii xumaanayso sidaas darteed waxaan ugu baaqaynaa muwaadiniinteena inay ka fogaadaan safarka dalkaasi waqti xaadirkan halka kuwa ku sugan gudaha laga doonayo in ay feejignaadaan oo sida ugu nasiyaha badan uga baxaan dalkaasi si nabada tilabataasi la mid ah safaradda Shiinaha ee Suudaan ayaa xalay soo saartay bayaan ay ugu baaqayso muwaadiniinta Shiinaha ee dalkaasi ku sugan in sida ugu nasiyaha badan uga baxaan dalka iyagoo sabab uga dhigaya xaaladda amni oo sii xumaanaysa iyo qatarta sugnaanta dhanka amniga ee sii kordhaysa safaraddu waxay uga digtay dadka yaraanta biyaha korontada iyo shidaalka waxaana ay kula talisay muwaadiniinta Shiinayska inay iskaga baxaan dalka Suudaan iyagoo raacaya maraakiibta u socda dhanka Sacuudiga duulimaadyada caalamiga ah ee la heli karo ama inay dhanka dhulka uga safraan xadka dalka Masar waqtahay war kale oo arrimaha la xiriira dawladda waddanka Imaaraadka Carabta ayaa lagu soo waramaya inay geeska gelisay warar sheegaya inay hubaynayso kooxda RSF oo dagaal kula jirta militariga waddanka Suudaan warbixin amurahani ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdi Fataax Mawlid Xaaji Cabdi war ka soo baxay kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka u qaabilsan amniga iyo arrimaha militariga ayaa lagu sheegay in Imaaraadku u arkay warbixin marin habaabin ah oo ka soo baxday hay'ad aan dooli ahayn taasoo ku saabsaneyd eedeemo la xiriirta jiritaanka nidaamyada hubka AH4 howitzer ee gudaha Suudaan isla markaana ay si xoogan u diidayaan eedeemahaas oo uu ku tilmaamay kuwa aansan lahayn isla markaana aan lahayn wax cadeen la taaban karo Imaaraadku wuxuu xaqiijiyay inuusan siin hub ama taageero ciidan midkoodna dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan isla markaana wuxuu arintan si toos ah ugu sheegay qaramada midoobay tani waxay ka muuqataa warbixintii ugu dambeysay ee guddiga khubarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku saabsan cunaqabataynta Suudaan taasoo aan wax go'aan ah ka soo saarin Imaaraadka isla markaana aan lagu soo bandhigin wax cadeen ah oo muujinaysa ku lug lahaanshiyaha Imaaraadka ee gudbinta hubka Suudaan bayaan ka soo baxay Imaaraadka ayaa sheegay in nidaamka howitzer-ka ee lagu sheegay warbixinta uu yahay mid lagu farsameeyo meel ka baxsan Imaaraadka kana jira suuqyada caalamiga ah muddo ku dhow 10 sano sheegashada ah in hal dal oo kaliya uu iibsaday ama ururay nidaamkan waa mid aan macquul ahayn
imaaraadku wuxuu sii wadayaa baaqiisa ku aadan xabad joojin degdeg ah oo waarta ilaalinta shacabka rayidka ah iyo dib u bilaabista xanaan siyaasadeed oo midaysan oo horseeda dowlad rayid ah oo aan militari maamulin khamiistii hay-adda Amnesty International ayaa shaacisay in hub laga soo saaray Shiinaha oo lagu arkay gacanta ciidamada gurmadka degdega ee RSF uu ka soo jeedo Imaaraadka Carabta. Warbixinta ayaa sheegtay in hub horumarsan oo ay ka mid yihiin gantaalaha lahago iyo qoryaha culus ee la rari karo oo Imaaraadku ka soo dhoofsaday Shiinaha lagu qabtay magaalada Khartoum laguna adeegsaday gobolka galbeedka ee Darfur, taasoo ah ku xadgudub weyn oo ka dhan ah xayiraadda hubka ee qaramada midoobay. hay-adda fadhigeedu yahay UK ayaa sheegtay in la ogaaday jiritaanka bombooyinka lahago ee GP-50A iyo madaxyada madaafiicda goobta ee AH-150 iyadoo la eegayo sawirada haraadiga hubka ee laga helay meelaha lagu weeraray ee Darfur iyo Khartoum bishii Maarso kadib markii ciidanka qaranka Suudaan ay dib ula wareegeen caasimadda. Amnesty International waxay sheegtay in hubka Shiinaha laga helay gudaha Suudaan uu ka soo jeedo shirkadda Norinco Group oo ah shirkad dowladeed u qaabilsan difaaca Shiinaha. iyadoo la adeegsanayo xogta macadka daraasaadka nabadda ee Stockholm SIPRI, hay-addu waxay xaqiijisay in Imaaraadka Carabta yahay dalka keliya ee caalamka iibsaday hubka madaafiiciyada goobta ee AH-4 ee 150 mm ee laga keenay Shiinaha sanadkii 2019. arrintani waxay muujinaysaa in Imaaraadku weli taageerayo ciidamada gurmadka degdega ee RSF, ayay tiri Amnesty International, iyadoo tixraacaysa warbixino horey oo ay ka mid tahay mid loo gudbiyey qaramada midoobay. hay-addu waxay hore u diiwaangelisay in dowladda khaliijka ay siisay ciidamadan diyaarado aan duuliye lahayn oo laga sameeyey Shiinaha. eedeen iyo diidmo sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFP, Abu Dhabi waxay muddo dheer beeninaysay inay siiso ciidamada gurmadka degdega ah ee RSF hub, inkastoo ay jiraan warbixino ka soo baxay khubaro qaramada midoobay, siyaasiyiin Mareykan ah iyo hay-ado caalami ah oo sheegaya wax ka duwan. dowladda Suudaan ee xiriir la leh militariga ayaa ku eedeysay Imaaraadka inuu taageerayo RSF, eedeemo ay Abu Dhabi si adag u diiday. talaadadii Khartoum ayaa ku dhawaaqday in Imaaraadku yahay dal cadaawad abuuraya, waxayna xiriirka diblomaasiyadeed u jartay, halka Imaaraadkuna uu kaga jawaabay inuusan aqoonsanayn go'aankaas. Cabdifataax Muriid Xaaji Cabdi, HBN Online TV. waa tahay cabdifataax, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. wararka kale aynu ku sii soconnay xagga waxaynu eegaynaa xiisadda ka aloosan gacanka Kuuriyada Waqooyi, halkaasi oo lagu soo warramayo in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un maantay uu sheeda kala socday dowlatus ciidan oo ah mid cusub oo lagu mitaalayo weerar nuclear oo lagu beegsanayo bartilmaameedyo ku yaal Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka, sida ay warisay warbaahinta Kuuriyada Waqooyi maanta oo Jimco ah. wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ee magaceeda loo soo gaabiyo KCNA ayaa sheegtay in dowlatusadan ujeedkoodu uu yahay in la tijaabiyo xawaaraha isbeddelka qaabka howlgal ee nuclearka, iyagoo ku koobnaa habraacyo faahfaahsan oo hawleed oo lagu talagalay weerar jawaab celin ah, iyagoo qayb ka ah waxa Pyongyang ay ku tilmaamtay ka hortagga militari ee ka dhanka ah iskaashiga ciidan ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ee gobolka. dowlatusida waxaa qayb ka ah ridista gantaal cusub oo ah nooca Hwasong-bo 11, kaas oo ah gantaal istiraatiiji oo casri ah, iyo nidaamka ridista gantaallo badan oo dhibco cabirkooda uu yahay 600 mm, kuwaasi oo ciidamada Kuuriyada Koonfureed ay u arkeen inay yihiin gantaallo istiraatiiji ah maadaama ay leeyihiin hagis iyo awood isriix oo kala duwan. sida laga soo xigtay hay-adda caalamiga ah ee tamarta atomikada ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA, waxaa la xaqiijiyey kalsoonida nidaamka amarka iyo kobcinta ee suurto gelin kara jawaab degdeg ah oo xaalad kasta ah oo nuclear, iyadoo la xusay in tijaabooyinkana si buuxda ay u gaareen yoolalka Kuuriyada Waqooyi ay leedahay. warbaahinta dowladda Pyongyang ayaa xaqiijisay in hogaamiye Kim Jong-un uu si shakhsi ah u sameeyey kormeero ku aadan dowlatusida, isagoo adkeeyey baahida loo qabo adkaynta cududda nuclearka oo uu sheegay inay tahay mid door ka ciyaari karta istiraatiijiyadaha ka hortagga dagaalka, waxaanu ku baaqay in la kordhiyo saxnaanta weerarada iyo in kor loo qaado diyaargarowga dagaal. dowlatusidan ayaa waxay imaanayaan kadib markii Kuuriyada Waqooyi maalinimadii shalay ay riday dhowr gantaal oo ah nooca ridada gaaban ah oo laga soo riday agagaarka magaalada dekada leh ee Wonsan ee bariga dalkaasi, kuwaasi oo ku wajahanaa badda bari, sida uu sheegay taliska sare ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed. labada Kuuriya
weli si rasmi ah uma aysan gaarin heshiis tan iyo 1953 markaas oo dhamaaday dagaalkii Kuuriya iyadoo aan la saxiixin heshiis nabadeed balse la gaaray kaliya xabajoojin xiriirka u dhaxeeya Pyongyang iyo Seoul waxa uu marayaa heerkii ugu hooseeyay sanado badan iyadoo tijaabooyinka gantaalada Kuuriyada waqooyiga ay sii kordhinayaan xaaladda taasi oo si cad u jebinaysa sida hadalka loo dhigay cunaqabataynta qaramada midoobay markana aynu eegno dagaalka Ukraine iyadoo magaalada Moscow ay maanta ka socoto munaasabad weyn oo ku aadan dabaaldega 80 guuridii ka soo wareegtay dhamaadkii dagaalkii labaad ee adduunka iyo markii la jabiyay Naazigii Jarmalka isla markaasna midowga Sofiyeeti uu ku guuleystay in uu jabiyo ciidamadii Jarmalka ayaa war cusub waxa uu ka soo yeeray dhanka Mareykanka iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump hanjabaad u jeediyay Ruushka iyo Ukraine taasi oo ah inay si degdeg ah ku gaaraan xabad joojin la xiriirta joojinta dagaalka haddii kale wuxuu sheegay in cunaqabateyn la saari doono wadan kasta oo jabiyay heshiiska Trump ayaa fariin u soo dhigay baraha bulshada waxa yar kadib markii qadka telefoonka uu kula hadlay madaxweynaha Ukraine waxa uu ku yiri wadahadalada Ruushka iyo Ukraine way socdaan Mareykanku wuxuu ku baaqayaa xabad joojin aan shuruud lahayn muddo 3 maalmood ah madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa xaqiijiyay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu u sheegay intii lagu guda jiray wadahadal qadka telefoonka in Kiev ay diyaar u tahay xabad joojin 30 cisho ah oo lala galo Ruushka laga bilaabo hadda Zelensky ayaa sheegay in xabad joojin 30 maalmood ah sida markii hore ay soo jeediyeen Washington iyo Kiev Marso markii ay ku shireen dalka Sacuudiga ay noqon doonto tusaalaha dhabta ah oo muujin kara horumar ku jihaysan dhanka nabadda waxa xusid mudan in ciidamada Ruushka Khamiistii ay sheegeen in si xad leh ay ugu hoggaansamayaan xabad joojin ku baaqay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo soconaysa muddo 3 maalmood ah iyadoo la sheegay ciidanka ku sugan gudaha Ukraine in wax dagaal aysan qaadeen laakiin waxa la xusay inay ka jawaabayaan haddii weerar ay ka yimaadaan Kiev ama ay jibiso rasaas joojinta Putin ayaa soo jeediyay xabad joojinta 3 maalmood ah iyadoo lagu jiro xuska 9 May oo ah markii midowga Sofiyeeti uu jabiyay Naazigii Jarmalka isla markaasna uu soo afjarmay dagaalkii labaad ee adduunka bishii Mars Moscow waxay diiday xabad joojin shuruud aan lahayn oo 30 cisho ah oo ay soo jeediyeen Mareykanka iyo Ukraine bishii Abriil madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu ku dhawaaqay xabad joojin gaaban oo loogu talagalay fasaxa munaasabada Easter-ka ee ciidda Kristanka taas oo hoos u dhigtay colaadda inkastoo si buuxda aan loo dhawrin rasaas joojinta labada dhinac